السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. كسو دوادا قصدينا مانتا قصة عجيب uga qisooyinkan si ay ugu waana qaataan. nin boqor oo magaalo ka talinayay ayaa masjid weyn wuxuu ka dhisay xaafadiisa. kadib masjidkii waxaa imaam ka noqday oo loo dhiibay imaam cod macaan oo quraanka ku qushuuca dadkana ka oohiya qushuuca dartiis. wuxuuna akhrin jiray imaamka suurado dhaadheer, laakiin waxaa arintaas dhibsaday ninkii boqorka ahaa oo magaaladaas ka talinayay ee masaajidka dhisay. wuxuuna ku yiri askartiisa, imaamka salaada nagu dheereeyo markasta hala ii keeno. askartii imaamkii ayay soo kaxeeyeen boqorkii gurigiis ayay keeneen. kadib boqorkii ayaa la hadlay imaamkii, wuxuu ku yiri iska jir haddii aad mar dambe salaada nagu dheereyso xabsiga ayaa toos lagu dhigaa. waxaa amar u qabtaa halkii rakcaba inaad 2 aayad ku dujisid oo kaliya. haddii aad intaas ka badisidna yaa weylak way ku dhamaatay. imaamkii arinkaasi aad ayuu ugu xumaaday. wuxuuna yiri boqorow warkaaga jira, waana ka maqlay sida tiraahda baan sameeynaya. intaas kadib waxaa la iskugu yimid masjidkii waxaana la galay salaadii maqrib. imaamkii faatixada markuu dhameeyay wuxuu soo qabsaday 2 aayadood oo aad ugu naxisay ninkii boqorka ahaa ee amarkii bixiyay. waxayna ahaayeen 2daas aayadood sidan: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. waxay dhahayaan kuwii la haystay aakhiro, rabbiyow waxaan adeecnay madaxdeena iyo kuwii noo waaweynaa ee na xukumi jiray, waxayna naga dhumiyeen jidka. aayada kalena waxay ahayd: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. rabbiyow sii kuwaas labalaab cadaab lacnad weynna lacnad. kadib waxaa la maqlay qof oonayo oohin aad u daran ilaa salaada maqrib laga baxayay. ileen qofkaasi oonayo waa boqorkii oo markii ugu horeysay la arkay asagoo salaada ku qushuucsan. intaas kadib boqorkii wuxuu u tagay imaamkii wuxuuna ku yiri, waan ku baryayaa cisho markii la gaaro 2 aayad ma ahane suurad dheer nagu duji haddaad rabto. rakcada koowaad al-baqara nagu dhamee, rakcada labaadna al-cimro ku sii xiji. laakiin waan ku baryayaa ina cafi sidaad doontid yeel. sheekhaygow adaa masjidka ka imaam dulucda sheekada ogow walaalkaygiyo iyo walaasheediyey. haddii aad istiraahdo waad saraysaa ku tuma dadka, ogow inuu jiro sareeyaha aan laga saraynin ee kan ugu sareeyo. ogow ilaah baa kaa weyn uguna weyn wax waliba kaana sareeyo. haddaba daawade nala wadaag waxaad ka fahantay qisadan, siina sheer garee walaal. allaha ku barakeeye.